bustaan dharabku mayraay bidhaansiga kalgacalkaay caalamkii barbartaay beertii xurriyadaay bara caafimaadiyo guri laysku baantaay baxsanay hargeysaay ka gudoomay baaqi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودة maxaad ka taqaanaa fanaanada weyn ee farxiyo fiska halkii ay ku dhalatay goormay fanka ku soo biirtay magaceedu saddexan iyo halka had deertaan ay ku nooshahay. daawade barnaamijkeeda farxiyo fiska halkan lagu soo koobi karo maanta waxaan ka soo qaadan doonaa qaybtii ugu horeysay ee fanaanada weyn farxiyo fiska. barnaamijku waxaa idin la socodsiin doonaa anigoo ah Sayid Xasan. waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii taariikh nololeedka farxiyo fiska. wadama jacay nafta dhahaawaco halaani dhahaawaco rogay jirke. daawade farxiyo waxay fanka ku soo biirtay sanadku markuu ahaa 2010 ilaa 2011. farxiyo fiska heesteedii ugu horeysay ee ku soo caanbaxday waxay ahayd heestii la magac bahday waa damac jacay oo ay ka daba dhaceen bulshada Soomaaliyeed. fanaanada magaceedu saddexan waa farxiyo axmed cadaawo fiska. waxay ku dhalatay magaalada wabxo oo qiyaas ahaan 60 kiiloomitir u jirto ceelbuur ee gobolka galgaduud. waxa iyadoo yar ay soo gashay dalka Talyaaniga kadibna markii dambe ku soo wareegtay dalka Ingiriiska iyadoo xilligan ay ku nooshahay wadanka Ingiriiska gaar ahaan magaalada London. farxiyo axmed cadaawo farxiyo fiska waxay dadka ku xantaan in ay tahay qof aad iyo aad u faraxsan oo aan ahayn qof mar walba xanaaqsan. that's why ay dadka aad iyo aad ugu taageeraan ama ay u siiyaan taageero fanaanadan weyn ee farxiyo axmed cadaawo farxiyo fiska la magac baxday. daawade heestii ugu horeysay ee ay qaado farxiyo axmed cadaawo farxiyo fiska waxa ay ahayd sad iyo calaf oo ay la qaaday fanaankii weynaa ee diini cagoos. heestan waxay ahayd sida